haddii lagu amaano ama hadalka lagu wanaajiyo ama hadiyad lagu keeno ama hab lagu siiyo ama madaxa lagu salaaxo ama lagu marti qaado ama waqti lagu qaato waxa mooday in lagu jecel yahay hadaba inka badan dad loo sameeyay oo meel cidla looga tagay ayaa jira waxaan kula wadaagayaa tusaalahaasi oo ku cadeynayo qofku markuu uu doonayo qofku wadada uu maro waxa jira ubaxa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dunida loogu jecel yahay in la arko iyo in la carafsado dadkuna si kala duwan ay u isticmaalaan kuwa way u tagaan way gooyaan kadibna way carafsadaan isla meesha ay ku gooyaan bay ku tuuraan ujeedkoodu wuxuu ahaa kaliya inay carafsadaan xitaa waxa laga yaabaa haddii uu carf waayo inay madaxa intii ka burburiyaan kadib dhacaan markuu uu ka yimaado ay carfiyaan kadibna ay ka tagaan kuwana waxay ku dadaalaan ubaxaasi inay u bedelaan caraf barafuun kadibna ay lacag ka sameeyaan waayo jacayl u qabaan way sii horumarinayaan inta uu ku baabi'i lahaa meesha uu yaalo hadaba hadduu maanta qofku amaana ama hadiyad ku keeno ujeedadiisu waxa ay tahay sida uu naftaada u soo heli lahaa naftaada markuu soo helo haddii aad u carfi weydid waxa laga yaabaa qalbigaaga saa inuu intuu burburiyo ka tago waa tan keenta mararka qaar inaad argagaxdid oo aad u qaadan weydid oo istiraadid qofku waqtiga kugu lumiyay ku amaani jiray hadiyadaha ku keeni jiray sida wanaagsan kula dhaqmi jiray maxaa iska bedelay waxa iska bedelay ujeedkiisu uu gaaray wuxuu rabay inuu ku soo qabto uuna ku soo qabto sidee ku ogaa kartaa marka qofka ku jecel ma isticmaalo erayga aniga dadka badanaa marka ay doonayaan inay qof kale marin habaabiyaan wadada ay saaran yihiin inay inta ka soo leexiyaan wadadooda ay soo saaraan waxa isticmaalaan marin habaabin aniga haddii aragto qof mar walba ka hadlaya aniga saanaan kuu sameeyay aniga saanaan ahay aniga waa dulqaad badanaha aniga noloshiisii oo dhan ku soo kooba aniga waa qof doonaya mar inuu naftaada soo qabto haddii uu soo qabtana ujeedku uu gaaray ujeedku markuu gaarana kadib waxa aad kala kulmaysaa inuu meel cidla kaaga dhaqaaqo waayo hadafkiisu dhan wuxuu ahaa sidoo adiga kuu heli lahaa laakiin qofka doonaya inuu nolol kula wadaago kuma dadaalaya sida uu ku heli lahaa ee wuxuu uu ku dadaalaya sida uu ku horumari lahaa kaasina waa jaceylka dhabta ah haddii maanta nolosha kugu cusub tahay mar walba waxa aad ka fiirisaa qofka kula hadlaya iyo qofka kula dhaqmaya iyo qofka kula joogaba in aad ka eegtid hadalka qaabka u hadlayo hadduu isticmaalaya aniga taa micnaheedu waxa ay tahay noloshaada inuu soo qabto kaliya laakiin haddii uu dhahay annaga haddii wax qaldamaan annaga ay wax naga qaldameen qofka hadduu yiraahdo taa micnaheedu waxa ay tahay inaad isku wada saaran tihiin haddii wax idii hagaagaana hadduu yiraahdo annaga wax noo hagaageen isla mid waayo isla wada ayaa saarantiin laakiin qofku markuu ku dadaalayo wadadiisa inuu ku soo saaro wadadaana adiga ma taqaani maalintii aad wadadiisa qaadid qofkaani maalintii khilaaf oo idin dhaxmaro way adkaanaysaa si aad dib ugu soo laabato waayo wadadan ha qaaday wada aad garanaysa ma aha waa wada uu asiga garanay waana tan keenta mararka qaar inaad ka buskoo weydeen dhibaato ku soo gaartay mar walba waxa ku dadaashaa inaad adigu wada sameysay cidda markaas nolosha kula wadaagaysana waxa aad ku dadaashaa wadadiisa inaad raacino wada gooni idii ah labadiinaba inaad wada raacdaan si aad u isticmaashaan annaga waa saaxiibka Shahid Bizani haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga ah commentiga gula wadaag haddii ay ugu cusub tahay subscribe ayaan ka codsanayaa mar walba dunida kaga nooshahay farxad iyo caafimaad baan ku rajeynayaa salaamu calaykum